لاوة تي في عيش ورركا كحرنا وساعد وليبا magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dawlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ka dhacay falal bulshada ay aad ugu xumaadeen kuwa oo ahaa in kufsiyo loo geysto caruur yaryar laamaha amniga booliiska ayaa waxa uu waday toddobaadadii u dambeeyay ka hortagida fal dambiyeedyada dhacayay iyagoona qaar ka mid ah dadka lagu eedeynayay xadgudubyadaasi ciidamada booliiska ay gacanta ku soo dhigeen waxaana maanta magaalada baydhabo lagu toogtay laba qof oo horay fal dambiyeedyadaasi kufsiga loo soo qabtay wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka koonfur galbeed Ilyas Saciid Cali Qalinle ayaa sharaxaya waxa ka dhacay maanta magaalada baydhabo way bagalantal waxa ka dhigay Liibaan Xasan Amiin Farxaan Cabduqaadir Cabdi oo dhacdadii ka horeeyay iyo jeesideen runtii intaas ku dib way bahabatay wada tashi far badan iyo weeladeen gudiga amniga iyo la weeladaayaan runtii garsoorkii cadaaladii maxkamaddii in walbaba ay koonfur galbeed way bahanbatay xukun Liibaan iyo Farxaan inay diltoogu shilka fuliy bulshada magaalada baydhabo oo maalmihii u dambeeyay aad u la yaabana dhacdooyinka foosha xun ee ka dhacaya deegaanka ayaa dareenkooda ka waramay markii la toogtay laba kamid ah dadkii fal dambiyeedyadaasi loo soo qabtay eedanka faraxsana intii laaga qabada haan dhimagna intii la dilo rajeen insha Allah hatta lan duugna fadaan awlaadayna madrasada dhigayaan iskoolaadku way ku reebi madrasada way ku reebi eeda macnaha aan ka farxanay madina manka hata la dilinnaari may fadaan intii ku dambeeyay kale iyo wali ku dambeeyana silin dabagal maamulka dabagalan la xaqooda inta kale macnaha jidka haan lagaati hooyooyin badan ayaa cabsi weyn soo wajahday caruurtii dugsiyada quraanka dhiganaysay ayaa waalidiintu ay bilaabeen inay subaxeena ay geeyaan galabkiina ay ka soo celiyaan halkii horay caruurta kaliya ay ka soo laaban jireen ayna tagi jireen dugsiyadooda muxdin xusni